kulanti wacan saaxiibada ku xiran kulmis media ku soo dhawaada warbixin kooban oo ku saabsan sheekadii laga bedelay filimkii caanka ahaa ee Captain Phillips oo ay aktarka ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed. Maanta oo kale 11 sano ka hor sanadii 2009 burcadbadeed Soomaali ah ayaa qabsaday markab ganacsi oo shirkad Mareykan ah lahayd lana yiraahdo Maersk Alabama. Waxa ay ahayd markii ugu horeysay taariikhda muddo 200 oo sano ku dhow in la qafaasho markab calanka Mareykanka ka kor babanayo bilowgii qarnigii 19 ee u dambeysay arrintaas. meel u jirta 240 mayl xeebta degmada Eel ee ku beegan geeska Gardafuul kana baxsan xeebaha Soomaaliya ee 4 nin oo burcadbadeed ah dooni ay wateen ku qafaashay markabkan ganacsi 8 Abriil 2009. dhacdadan ayaa dunida oo dhan qabsatay maalinkaas. Dowladda Mareykanka ayaa waqtigaas u soo dirtay xeebaha geeska Afrika mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee noocoodu yahay burburyaha iyo kuwo kale si ay markabkaas u soo furtaan. dagaal dhex maray burcadbadeeda iyo ciidamada badda ee Mareykanka kadib 12kii bishaas ayaa la soo furtay markabka iyo kabtaankii waday oo la oran jiray Phillips. 4 burcadbadeed ee 3 ka mid ah waa la dilay, halka mid ka mid ah nolosha lagu qabtay laguna xukumay 33 sano oo xabsi ah. dhacdadan ayaa kabtaankii markabkaas ka qoray buug taasoo markii dambe lagu metelay filimkii caanka noqday ee Captain Phillips oo ay jeleen jalaaga caanka ah Tom Hanks iyo aktar Soomaaliyeed oo u horkacay Barkad Cabdi. daawade haddii aad ka hesho muuqaalka like saar waayo waxaanu tahay dhiirigelin si aan u soo badino muuqaalada xiisaha leh. muuqaalka intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo, amaana Allah.